السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا برنامج كدير رجال عافمات وأنا جواه دكتور يوسف. هروح أنا وهذا اللي فيديو كسابسن دبر حنونكا أما لقن حنونكا إيو هدي وحنكو كاري مادو عدبها أما وكاري مادو قيبت هوس اللقطة وحيابهاس أردن أو أي صوبتو حنون شوكتا يقفك أو أي aanu shaqadiisii ama shaqadii joogtada aanu qaban karayn marka halkan maanta waxaan ku hayaa dhidhowr silicone oo lagu talagalay handii aad leedahay cidhib xanuun ka caawinaya oo tusaale ahaan oo kale sawirkeedii waa kan waa dhidhowrka waa laba qaybood oo kale waxa la gelinayaa kabaha ayaa la gelinayaa qaybta dambe ee cidhibta ayaa la gelinayaa handii ay cidhib xanuun aad leedahay tani waxay ka caawinaysaa in cidhib xanuunkii ay ka saacido oo xanuunkii uu ka yaraado dabeetana qaybtii cidhibtuna ay bogsato laakiin haddii xanuunkii joogto ah kaba adag oo qalafsan oo adag oo aan raaxo lahayn markasta waxay sii dhaawacaysaa cidhibtii iyo seedii hoose laakiin tani waxay iyadu waxaaf ahaan imanka waa qaybta cidhibta oo kale aad iyo aadna way u anfacaysaa waana wax loogu talagalay sidaas sawirka aragtaan waa buush qaradeeduna waa ilaa 3 سنتيمتر oo kale marka labadaasi waa qaybta hadii cidhib xanuun aad leedahay halkan waxaan ku hayaa isagii oo dhameystiran waa laba dhidhowr tusaale ahaan oo kale waa laba dhidhowrkii oo dhameystiran qaradoodu aad iyo aad bay u weyn tahay hadii qaybta hoose ee adinka ee seeda martaa uu dhaawac ka yimaado caabuq ahaan oo kale ama seedii laf dheeraad ku soo baxday oo ay kugu sababayso xanuun joogto ah tani waxay ka saacidaysaa in seedii bogsato wayna ku support garanaysaa qaradeeduna aad iyo aad u weyn tahay waa hal far iyo qaradeeduna tahay waana silicone-ka lagu talagalay socodkiina way ka caawinaysaa marka aad iyo aad wanaagsan tahay dad fara badan ayaan ay soo weydiiyay oo fiidiyoodii hore comment ahaan noogu soo qoray maxaan isticmaalaa marka maanta waa kuwan waan idin haynaa qaybtan waxaan ayadana kaga hadlayaa hore waxaan uga soo hadlay dhabar xanuunka waxyaabaha sababa dhabar xanuunka hadii jeer marka da'da leeyahay waxa yimaada in laf dhabartii inay laftu milanto ama uu yimaado dhaawac ama qaybta dambe ee dhabarka deetana dhaawacaas ama jabitaan yar ama balansigii oo luma dabeetana ay ku sababto neerfihii labada dhinac ka baxayay bidix iyo midig ay cadaadis ku samaysmo cadaadiskaas oo kugu sababaya dhabar xanuun lugaha qaybaha dambe ee lugaha iyo adimada xanuun kugu sababaya waxyaabahaas oo dhan markaas waxyaabaha lagu daweeyo waxa kamid ama dawo ahaan la isticmaalo ama qalin lagu sameeyo laakiin intaaba la gaadhin maanta waxaan idin haynaa kaalmaati ka saacidaya oo support gareynaya inay laf dhabartaadii toos ahaato oo aanay dhinacna u baydhin haddii in yar ay dhinac u baydho waxa laga yaabaa inay xanuun kugu sababto dheeg ahaan si laf dhabartii iskugu taxanayd loo ilaaliyo toos ahaan miisaankiina si toos ugu dhaco oo balance u ahaado waxaan idin haynaa support kaalmadan oo support ahaan waa beel weeye qaybtan dambe waa qaybtii dhabarka waxa uu ka samaysan yahay aalad lagu talagalay oo saacidaysa dhabarkii oo laf walba halkeeda ku haynaysa qaybtaas waa qaybtii dambe ee dhabarka xaggan aan u rogo qaybtanna waxa weeye waa labadii qaybood wuxuuna ka kooban yahay 3 lakab ayuu ka kooban yahay iyo qaybtan oo dusha lagaga sii xirayo markaasi fiican ayuu qofkii dhabarka ugu haynayaa had iyo jeer marmarka qaarkood uu qofku safar galayo oo kale ama uu shaqeynayo oo kale ama hawl shaqo ka qabanayo hadduu tan xidho aad iyo aad u saacidaysaa waxay ka saacidaysaa inaanu sii dhaawacmin inaanay lafahaagii dhaawac dheeraad ku iman in neerfayaashii aan dhaawac ku iman waxyaabahaas oo dhan waa kaalmo ayay tahay mar alaale marka aad dareento dhabar xanuun waxa muhiim ah inaad isticmaasho kaalmadan qaybtani waa qaybtii hoose ee laf dhabarta ee lagu xiranayay qaybta hoose ee caloosha ee dhabarka tanina waxa weeye waa qaybtii qoorta lagu xiranayay oo haddii aad ku xanuunayso qaybta sare ee laf dhabarta ee qoorta ayaduna aad iyo aad bay ku saacidaysaa saasaa loo xiranaya iyadana oo markaa si ay ku hayso toos ahaan ugu hayso ugu ilaaliso laf dhabartaadii
qalabkan iyo qalabo aad u fara badan oo ku saabsan haday gacmaha noqoto haday adimada noqoto haday ruugaga noqoto haday dhabarka noqoto imika ku yaan tusayna ee dhabarka iyo qoorta iyo cidhbaha iyo qaybta hoose iyo adinka waxyaabahaas oo dhan oo dhameystiran oo ayaanu haynaa oo ku diyaara waxaanad ka heli kartaa magaalo kasta oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed commentiga hoose nagu reebis haddii aad u baahan tahay halka aad joogto magaalada aad joogto soo diraya marka fadlan haddii aad u baahan tahay commentiga hoose nagu reeb waana ku soo diraynaa aad iyo aad u mahadsantiin waano iyo kuleeta dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh